ummaddu inay qorshaysato mustaqbalkeeda xaggay ku socotaa azamaadku dunida waa ka dhacaan roob la'aani waa dhacdaa abaari waa dhacdaa barwaaqa waa dhacdaa laakiin adaa lagaaga baahan yahay sidaad intaba u noolaan kari lahayd ummadaadu ay u jiri kari lahayd dunidaynu maanta joognaana duni laysu naxariista maaha tusaalayaal baa malaa dadka ku habboon in la siiyo tusaalayaal kooban baan tilmaamaya waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan dee dunidu maanta kala tagtayo wakhti laysa soo gaadha lama joogo waddanno aa wada taqaaniin singapore maxay ahayd wakhtigaynu inagu xornimada qaadannay taiwan maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay malaysia maxay ahayd wakhtigaynu xornimada qaadannay turkigu muxuu ahaa waddannadaasoo dhammi maanta waxaa laga yaabaa in la leeyahay dhaqaalaha dunida ama teknolojiga dunida ama horumarka dunida meel saray kaga jiraan maxay u dhacda waxaan leenahay waxaa ka mid ah waxyaabaha keena inay dadku guulaystaan bay yidhaahdaan oo khudadka istaraatiijiga ee la dego waxaa ka mid a kow zamanka inay dadku ka faa'iideeyaan oo la ilaaliyo cadama hadri lwaqt hadafku inuu xadidan yahay meesha loo socdo in la garanayo wasaa'isha lagu gaadhaya in la tafsiiliyo la garto hadafka wasiilada kuu geynaysa mawaariddaad haysato dhammaantood inaad isku daydo inaad ka faa'iidaysato yacni tharawaadka waxa ummaddu ay leedahay ama dhul ha kor saaraado ama hoos ha ku jiro ama bad ha ku jiro ama dadka ha ku jiriyo aqoontiisa waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdaan athiqatu binafs dadku inuu kalsooni naftiisa ku qabo oo ay tahay tusaalaan bixinaya maanta waddan yaroo taiwan la yidhaahdaa maqlaysaan oo labada dowladood ee dunida maanta ugu dhaqaalaha badan isku hayaan china iyo maraykan baa isku haya taiwan maxaa la isugu hayaa maxaa laga rabaa maxaa maraykanku uu leeyahay aan ilaaliyo taiwan lixdanaadkii horta taiwan waddanka la yidhaahdaa sidiisaba waa markii thawradu ay ka dhacday china qoladii boqortooyadee la riday ayaa carartay waddanka intii kale mawtistan iyo kooxihiisiiba qabsaday qoladanaa soo baxsatay oo jasiiraddan yar degtay marka waa maamulkii waddanka jayna boqortooyadii ka talin jirtay iyo wixii raacay baa soo baxsaday oo halkan degay jayna waddan shuuciya buu ahaa waa loo diiday united nationka taiwan kaa yar bay ku dareen united nationka 20 sano ayay kursiga Chinese-ka iyadu ku fadhiday waxaanay dhaqaalaheedu ahaa lixdanaadkii waxa lagu tilmaamaa dhaqaalaheedu $170 buu qofku يعني marka la eego GDP-ga wadanka $170 buu qofkiiba ku soo hagaagay yani dhul beeralaya oo aan waxba ka jirin bay heedo daciif ah Mareykan baa wuxuu go'aansaday wadankan tirada yar le dhowr iyo 20 milyan iyo dadkan bilyanka iyo badhka bini'aadama inaanu isku doorsanin warshadihiisa iyo dhaqaalahoodii waxaan inay suuq u baahan yihiin inuu China la heshiiyo isagu maslaxadiisu ka hadlaya Taiwan buu ka soo tuuray United Nations iyo China galiyay 1970 71 something like that ayaa China la siiyay kursigii United Nations Taiwan dabada loo soo tuuray Taiwan markaa waxay noqotay wadan yar waan dunida cid ictiraafsanayn laba saddex dawladood oo hoos kala dhaqmo mooyaane waan United Nations ka tirsanayn waan ururada dawliga gali karaynin waan muctaraf baahayn China hi weynaaba la ictiraaf Taiwan dadkeedii markaa way fakareen waxay yiraahdeen seebaynu loolanka dunida uga qayb gali kareynaa inagoo aan dawlad muctaraf ah ahayn cid la fadhina waxay yiraahdeen adduunku wuxuu ku horumaro waa technology balan xagga technology-ga u kacno waliba aanu kacna bay yiraahdeen xagga Silicon Family chips-ka daqiiqa ah الرقائق الدقيقة 1973 أي waxay fureen macdal la yiraahdo ITRI oo wixii Silicon Valley-ga lagu hayay bal inay baran karaan 3 sano kadib 1976 bay arday aad u badan waxay u direen
sidoo Ashraf sheegayo waxay u direen waddanka Mareykanka si ay aqoonta jibka daqiiqa ku saabsan inay soo bartaan Taiwan inkii madaxda ka ahaa waxay ku qanceen war culimada Taiwanese ee dunida ku nool ee dabadda jira aan soo celino waddanka oo de waddan yar oo beeralay inoo lacag badan ma haysanay si ay kuwaas u soo noqonayaan waxay u baahan yihiin baynu siinaynaa imtiyaazaad halka wixii aad ku haysateen wax ka badan ayaan waddankaaga kugu siinaynaa waddankaaga u shaqeey baa la yidhi marka khubaro badan oo ay leeyihiin oo dunida ku firiirsanayd ayay aqbaleen ay dib u soo qaadaan waxay haddana yidhaahdeen intanoo qura inaguma filla ee nin baa jira Taiwanese oo khabiire ninka hala doono waxaa jira nin la yidhaahdo Morris Chang oo khubarada caalamka ugu waaweyn ee waqtigaa joogtay ka mid ahaa isagoo markaa dhowriyo konton jira ay yidhaahdeen ninkaa waa in la doonaa ninka kani 25 sannadood buu wuxuu u shaqaynayay kambaniga caanka ee Texas Instruments la yidhaahdee Maraykan oo technology-ga daqiiqa kambaniyadii waqtiga hogaaminayay ninka hal raadiye bay yiraahdeen ninkaas 1958 ilaa 1983 buu kambaniga u shaqaynayay wax la muxaawaleeyaba waxa lagu qanciyay in waddanka la keeno 1985 bay Morris Chang dib u keeneen Morris Chang wuxuu bilaabay muhandisiintii iyo wixii inuu tababaro wuxuu bilaabay inuu shirkad sameeyo 1987 shirkad la yiraahdo TSMC waa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company waa shirkadda Taiwan u qaabilsan inay semiconductorska soo saarto shirkadda tan wuxuu ku bilaabay raasamaal aad u yar 220 milyan oo dollar buu ku bilaabay 220 milyan oo dollar dawladdu ma haysato هذا ضعيفة بقول يلا باتني دكوا كأنا بويري بقول يلا باتن كلنا شركة فيليبس اللي هذا هولنديس كا يدد يوحبوك قاضي أنت سيسكو شابة لا بقول يلا باتن مليون بو حكوسة مية شركة داسكو أساسي شركة بلوة وحنا الربطة شيب اندستري إنه نقطة شيب كهرت صومة تغانين ومسكحة كان ينكهر لنا ومسكحة ير كشقة يسوحن شربة ما أنت وحن إلكترونيكس كشرة مسكحة ير كشقة يسيسا بروسيسورز كأيه وحلا نوعية كاسو الرباين وصوصارو شيب كاين لصوصارة لبا فرسما إلى هذا فرسما وحلا هذا تصميم designing ووحنا يكتب المامان logical gates وحكسم يسين logical gates مسائل ملادات كأنت بدناني فهمي وسكيت جينا وإن بهالكالله ديزاين جريه ديزاين كمركا هو علم السيدي سو تاجر مركا يجيب كشوكته كلا بعدنا وحويا وحياد ديزاين جرايسي إن ورشدي سماين لهيدا صار لهيدا لسمايه سيداتنات كي لحظة شركات هذا وحسمية دوني دوجوا وين وحالها أمريكانية هي يابان صدق شركات هذا أمريكانة وتكساس إنسترومنت كا IBM يا إنتل دانك كلنا صدق شركات هذا وين أولية هي يابان بيا اللي وين نك هي توشيبا هي فيتسو لحظة شركات هذا مكوي هو وين أمريكا كم إذا هاي وحصاص هذا لكن دوني ذا كونتن شركات باتشره وتصميم كسمية ورشة ماله لكن تصميم كبهال كاير السودو الشقين يهور مرنتيسا كونتن شركات هذا كشقية باتشره شركات كوا ويناي أمريكا وحي كحدين مركا عدي الربطة إن الله سميه هذا وكو سميننا لكن وحي كدم باية أنا قلنا وسميسا كرنا كاجي تصميم كاجي marka dadkii meel kale sameeysamahayaan waxay ku qasbanaadeen in Mareykan shirkadkiisa loo tago nin waliba design cusub oo aan dunida oo intuu keeno uu u dhiibo oo loo sameeyo markay isaga u sameeyaan hadhownayana iska sameystaan suuqayana geliyaan Morris Chang wuxuu bilaabay
bahladii qadiimka ahaa horta inay sameeyaan si ay ugu tababartaan oo kuwa hore ee baatinkoodu iska baabay inay wadaan wuxuu kaloo bilaabay shirkadka jadiidka ah inuu yiraahdo shirkad waloo noo keento tasmiimkaaga waa ku haynayna adigu ma iska leh annaguna ma sameynayno waxaad adigu dalbato maanu ku sameynayna marka waxay yiraahdeen laba sifo ay yeesheen kafaa iyo amaana bay isku heleen bay yiraahdaan inay dad farsamadan garayeen yihiin oo wixii sameyn karaya iyo dad amaana leh oo wixii nimankan u haynaya taasi waxay keentay shirkadkii dunida ee qoladaasi sanduleysatay inay xaggan u soo weecdaan ninkan wuxuudiina u haynaya waxna u sameynaya dhankiisa inay la bilaabaan bal markay xoolaysatay horumar weyn bay waxa ku sameeyeen shirkadoodii ilaa iyo zabaa'intooda ay ka mid noqdeen xataa kuwii sameynayay Intel iyo maxaa la yiraahdaa Texas Instrument iyo shirkad waaweyn Motorola iyo kuwaasay chipskooda soo saareen markuu warshada sameeyay 13 sanadood kadib chipka dunida boqolkiiba 60 Taiwan baa soo saari jirtay shirkadda 2008 markii la gaadhay waa 12 sanadood kadib 51% bay soo saarayeen chipka dunida lagu sameeyo oo dhan taasi waxay keensatay shirkad waaweyn oo wax sameyn jiray markii dambe inay iska badaayeen wax sameynta oo ay design-ka ku soo hadhaan dabeetana iyaga maadaama ay amaano leeyihiin yidhaahdaan baalkan warshadahan kulfadoodu tiro badan tahay halka warsho 12 bilyan baa lagu dhisaa markan dambe halka warsho intaad dhisi lahayd waxa kan qolada tan ma siisaan ha sabeeyaan shirkadka waaweyn iska daayay waxa ka mid ah AMD oo kale 2009 kii bay joojisay tasmiim bay ku hadhay nimankii way wadeen waxay gaadhsiiyeen raqaa'iqda noocan dunida oo lin ama dunida kale samayn karin ay sameeyaan 5 nanometer that means Intel iyo wali 7 nano ma sameeyaan si ay u fahamtaan nanometerkan aynu sheegayna waa 1 bilyan mitirka marka loo qaybiyo 1 bilyan midkii 5 ka mid ah ay processorskooda noocyadkaasi ku sameynayaan si kale haddaan u tilmaamo markastoo nanometerku uu hoos u sii dhaco bahalka speedkiisa wuu kordhayaa powerku cunayaana wuu yaraanayaa waana dee waxa la rabo in shaygiina uu soo yaraado power consumptionkiina dabkii uu kaa cunayana inuu yaraado horta si ay u fahamtaan waxaan dunida nimanka faanayo dham ay haystaan waxan bay ku shaqeeyaan gantaalka cirka loo dirayo satellite-yada samada jooga diyaaradaha iyo hubkan waaweyn waxa laaliyo wax gawaadhidan maanta dunida joogto oo dhan waxaan mobile la sito oo dhan wax oo dhami bahalkan yar bay ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan dunida maanta waxa electronic joogo dhami processor bay u baahan yihiin lagama maarmo processorkaasina markasta uu sii horu maraba dee cajabtiisa badanaysa مثلا maraykanku maanta F35 buu sameeyaa dayuurada F35 processors-ka u baahantay nimankan baa sameeya hadduu wuxuu ku qasbay khatar baa lagu jiraayay inay warshad ka dhisaan Texas 12 bilyan ku kacaysa si kale markaan u tilmaamo waxay sameeyeen hadda 160,000 oo mitir square meel abay warshad cusub ka sameynayaan oo ay 5 nanometerkii hoos uga sii dhacayaan 3 nanometer inay hadda soo saaraan 3 nanometer markay soo saaraan macnaheedu wax weeyaan kii 5 nanometerka ahaa boqolkiiba 70 buu ka dheeraynayaa 70% buu faster than that one yahay raqaa'iqda maanta mutaaxa Intel baa wali 7 la rafanaysa iyana intay 5 ka soo guuraan bay 3 u guurayaan yay wax u samaysaa TSMC waxay wax u samaysaa Apple shirkaddan iPhone kale waxay wax u samaysaa Nvidia shirkaddan inta badan kombiyuutarada ku aragtaan qalabka ku jira inay leedahay waxay wax u samaysaa Qualcomm shirkaddan processorada samaysata waxay wax u samaysaa Marvell waxay wax u samaysaa Broadcom waxay wax u samaysaa Linux yani waxay wax u samaysaa shirkadka waaweyn ee dunida la sheego shirkadda qudhe gaarka isugu filan ee aan iyaga ku xidhnayn waa Samsung iyaguna leh waxooda gaarka ah
taa macnaheedu waxay sheegaysaa China 28 nano buu marayaa kuwanina 3 bay marayaan 3 iyo 28 baa la kala joogaa that means wax isu dhow ma aha shirkadkan waaweyn ee dunida jooga waxay yiraahdaan Mareykanku hadduu is yiraahdo kuwan maanta dib u samayso ugu yaraan 10 sanadood ay ku qaadanaysaa bay yiraahdaan China markay aragtay inaanay gaadhaynin waxay isku dayday inay xaddo in muhaddisiintii ay lahaayeen Taiwan kumaan bay soo saartay boqol bay ka xadeen maxay siinayaan 3 laab mushaharkii Taiwan ay bixin jirtaa China siinaysa laakiin de halka warsho 30,000 oo injineer buu baahan yahay hal warsho noocan inaad soo saartaa 3,000 oo injineer ay u baahan tahay bay yiraahdaan markaan warkaas soo duuduubo nimankani aqli bay invest gareeyeen dalkoodiina waxa u dhigan khuto inay beeraleyda qura ka baxaan oo ay dunida hogaamin karaan waxay yiraahdaan marka la yimaado xagga militariga Taiwan laguma duuli kare bay yiraahdeen waayo haddii lagu duulo dunida dib u dhacaysa bal qiyaas adigu wadan yar oo la leeyahay haddii lagu duulo dunida oo dhan baa dib u dhacaysa la Mareykan baan cirka wax badan u diraynin wala imika markay azmada tani dhacday مثلا gawaadhida dunidu nus bay hoos u dhacday in ku dhadhow bay leeyihiin wax waliba way qaali garoobeen maxaa loo leeyahay karooni wax waliba way qaali garoobeen chainkii ku saabsisnaa bahalka kan ayaa dhibi ku jirta chainkii isku xidhnaaye processorskii dunida gaadhi lahaa baa yaraaday marka waxay yiraahdaan waa silaaxu radci li Taiwan bay u noqotay bay yiraahdeen silaaxu radci hubkii ay naftooda ku ilaalinayeen waa jibka yar warhoy China dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto Mareykan dib baad u dhacaysaa haddaad weerarto dunida ay haddii weerarna lagu qaado dib baad u dhacaysaa waayo warshadoodan cidina ka maarmin warshadooda yar ay meesha ku haystaan baan cid ka maarmin dunida qolaba wax yar bay goosatay warshadani qalabka ay wax ku samaysayeen hal shirkad oo qura dunida leh MSL shirkad Hollandiis ayana leh waxay tani soo saarto qalabka wax lagu sameeyo taasoo qura samaysa maxaan uga dan leeyahay masaladan TSMC iyo Taiwan hadaynu sanaa ka warramo muhaadaraat bay u baahan tahay laakiin waxaan uga dan leenay beeraley bay ka yimaadeen laakiin qiyaadahan leh oo khutalo meel u muuqata heshay qiyaadadaas istiraatiijiyada ay degtay wixii ay u baahnaydna way ku dhaqaaqday oo ah inay macaahideeda horumariso aqoonyahan dabadda u dirato waxay aqoonyahan lahayd ee dunida ku noolaana inay dib u soo xarayn karto hal nin oo ay soo hesho raggeedii ka midina isbeddelka intan leeg buu sameeyey saawgeeda ayuha alxibba waxlana umamku haddaan cidi mustaqbalkooda ka fakerin oo fikrad qura ma aha fikraddu ihtimaam bay u baahantay bay dhahay in mudnaan la siiyo ihtimaam qura ma aha ihtimaamku takhtiit buu u baahan yahay baa la leeyahay in qorshe uu jiro qorshe qura ma aha qorshuhu wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin tanfiid camal inuu yimaado camalku wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin taqyiim in dib loo qiimeeyo la eego maxaa ka qaldan maxaa dhiba taqyiimku wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin wixii uu soo saaray tasxiix in la hagaajiyo inta aan tilmaamay waxay yiraahdaan waa khutuwaadka istiraatiijiga khutadka loo maro fikrad ihtimaam khutta tanfiid camal taqyiim tasxiix waa stepska kala dambeeya la mara bay yiraahdaan haddii qole beeraley ay maanta dunida gacanta ku hayso oo tira ahaan dhowr iyo 20 milyan oo aan ahayn dawlad muctarafa oo dunida ka jirta oo aan wadankeedu resource lahayn imika مثلا waxyaabaha yareeyay bay leeyihiin in dunida uu hadda processors kaliya waxna yaraadaan waxa kamid ah dagaalka Ukraine ka socda waayo Ukraine iyo Russia waxay kamid yihiin wadanada ugu badan ee gaasiska naadirka ah ee bahladan lagu sameeyo soo saara gaasiskaasi waxa laga sameeyaa birta waana wadanada ugu badan ee birta warshadaha birta leh
dunidu dabada isku xidhantay laakiin waddanka yari wuxuu gaadhay inuu dunidoo dhan center u noqdo oo yiraahdo haddii aniga la dhibo isagoo aan hub haysano waxba toona haddii la dhibo dunidoo dhan ay adaa dhibmaya wuxuu gaadhay inuu dadkiisii ka keeno min 170 ilaa iyo $10,000 inuu income-koodu noqon karo waxa la mid ah waddanno kale oo aynu ka warrami karno Singapore lixdanaadkii caynkaas ahayd Singapore ciidda guryaha lagu dhiso Malaysia looga keenaa ciidda guryaha lagu dhiso bal aduu qiyaas waddan ciid u baahan si uu guri u dhisto waddan kale looga rarayo waana waddannada ugu dhaqaalaha badan labay ka mid tacliim baanay ku gaadheen Malaysia Turkey waa daahira nin baa yimi industrigooda weyn buu dib u hagaajiyay arbakaan la yiraahdo professor ah heavy mechanics ka professor ku ah waddanku dib u hagaajiyay Erdogan baa ka dambeeyay waxa aragteen baa la sameeyay waxaan uga dan leeyahay cid kasta oo nool oo bini aadama oo khutad degta oo naftooda kalsooni ku qaba naftooda iyo dadkooda kalsooni ku qaba mustaqbalkooda way wanaajin karaan ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qisada nabi yuusuf waxay ka warramaysaa qisas badan oo kale quraanka ku jira laakiin tan waxaanu soo qaatay waa qisa mustaqbalka ka warramaysa 14 sanadood oo soo socda ama 15 sanadood oo soo socda waddanka sidii loo badbaadin lahaa ayuha laxiba waxaan ku soo koobayaa waqtigii la siiyay waa gabagabo waxaan ku soo koobayaa oo qori waxa weeyaan خطتنا waxay u baahantahay koow alla ka cabsi laba waxay u baahantahay al-i'timaad ala nafs dawladda heblaayana taageeraysa iyo meel kale aan raadinay waxba kama jiraan dalkaaga iyo dadkaaga iyo awooddaada iyo caqligaaga iyo xooggaaga iyo cilmigaaga inaad isticmaasho al-i'timaad ala nafs والثقة بنفس kalsooni inaad isku qabto inaad wax noqon kartid waxaynu u baahannahay inaynu siino awlawiyada aakhiro dadka iyo ummaddu inay aakhiro badbaadaan خامس الأمر waxaynu leenahay mustaqbalka dhowna khutu u baahan yahay camal iyo ummaddu ay yeesho hadday tahay ta qofka waa inaanad isku mid noqonin sanadkan iyo sanadka dambe waa ilaa faashil baa tahay ardaydeena jaamacadku waxay rabaan inuu waraaq qaato waraaqi waxba ma tarto inaad wax barataaba muhiima waxbarashana waa la koraa haddaad maalinta jaamacadda ka baxdo wax akhrisba kuugu dambeeyo xagaad qabanaysaa shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhaqaale ahaan dadnimo ahaan akhlaaq ahaan inaad ka kortid halkaad shalay taagnayd inaad routine life ku jirto maaha nolol routine oo aan horumar lahayn waa markaad qoftay markaad qoys tahay waxaad u baahan tahay inaad qaabayso qoyskan maxaad ka damacsantahay xagaad ku wadaa meeshaad u hogaaminaysaa inay kuu muuqato khutadaad yeeli lahaydna inay kuu muuqato noloshu caraaqil ma weydo waa mashaakil kaa hor imanaya laakiin mashkilad kasta way out bay leedahay meel looga baxaa bay leedahay ummadda tan waa in cidi u fakartaa fikrad qura maahee waa in cidi khutadka u dejisaa dadka qaadada u ahi waa inay khuda u dejiyaan khuda qura maahee waa inuu noqdaa wax la tanfiidinayo inagu midi shalay hadduu xaggaa u kaxeeyey madaxweynaha ku xigaana xagga kale u kaxeeya waxaad moodaa inaynu ku ballannay midba intuu dhiso ka kale inuu burburiyo bale dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah xafiis cusub markaad timaado kuraasida inaad ka jeediso xagga ay u jeeday miiska inaad rarto kii hore xaggaa ugu fadhiisan jiray soomaa adigu miiskana xaggaa dhig kursigana xaggaa ka soo jeeday dhanka ka bedel halkaad wax kale ku kordhin lahay idan hadduu noqdo maamulka ummaddu midba kuu ka dambeeya unun isku dayo kii hore inuu raadkiisii masaxo yuu legacy helin yuu magac helin yuu waxaan helin halkuu odhan lahaa intaasi u gaadhsiiyey maxaanana ku dari karaa ama kii hore ceebtiisa inuu ka warramo ka soo socdaa inuu ka fekero kan siduu u fashilin lahaa jooga si aan u guulaysan lahayn ummaddaasi meel u socon mayso
إذن قبل يدو حتى إلهي وحيد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وعمل السماء بالليل إلهي يا رسولك يوم الضبا وإذا نركض دون طوح السميسان آخرنا إلهي بأيدين كور رمي بحياة السميسان وصلى الله على نبينا محمد.